والله هو قيامي قيام السعيد أيوة قيامي قلبي أيوة حد كدبنا قلبي جبي قيامي قف مسكنا قيامي أيوة قيامي qisadani waa dhab waxaana inoo soo diray caaisha cuud oo ka mid ah saaxiibada aadka ugu xidhan janaalka aayaha nolosha tv kuna sugan magaalada muqdisho waxay tidhi waan idinkaga mahad celinayaa bahda aayaha nolosha tv sidaad u soo bandhigaysaan dareenka bulshada gaar ahaan bay tidhi dhallinyarada soomaaliyeed waana tan sababtay inaan barnaamijyadiina ka qayb qaato qiso jacayl oo aad u xanuun badan ayaa isoo martay taasoo noloshaydii iyo himiladii aan hiigsanayay dhaawacday bay tidhi mar kastoo aan xasuustana uurka ayaan ka ooyaa haatadan oo aan qisadan qorayana ma qiyaasi karo marxaladda aan ku suganhay bay tidhi jacaylku waa macaan jacaylku marnaba xanuun ma lahan laakiin waxaa xanuunka u yeela waa beenta bay tidhi iyo in la fududaysto dareenka qofka kale wiil aynu yaraanteennii isbaranay ayaa xiriir jacayl ina dhex maray bay tidhi muddo kooban ayuuna ku guulaystay bay tidhi in uu qalbigayga hanto wuxuu ahaa jacaylkii iigu horeeyey ee indhaha ii furay bay tidhi muddo markaynu ahayn mucaashiqiin ayuu xabsi galay bay tidhi wiilkii inkastoo aan dhib badan ka maray sidaan kula xiriiri lahaana ugu dambeyn waxaan ku guulaysta bay tidhi ama ii suurto gashay in aan taleefanka ku helo anigoo u ballan qaaday in aanan ku cidlayn doonin oo aan uga tegi doonin bay tidhi xaaladda adag ee uu ku jiray ku dhowaad 4 sano ayuu xirnaa bay tidhi intaasna waxaa noloshaydii ku koobay bay tidhi inaan isaga uun caawiyo maadaama nolosha xabsigu ay tahay mid aad u adag kamana daalayn bay tidhi inaan sugo qof waliba oo dunidan saaran wuxuu jecel yahay bay tidhi inuu nolosha horumar ka sameeyo laakiin anigu horumarka aan hiigsanayo waxay ahayd bay tidhi isaga uun inaan hantiyo oo ooridiisa aan noqdo iyadoo codkeeda aad ka dheehan karto dabka ku shidana waxay tidhi waxaan boqolkiiba boqol u mahad celinayaa aayaha nolosha tv oo ah asxaab dadka aada ugu damqata dhalinyarada qalbiga u dhista niyada u wanaajisa boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin 4 sano ku dhowaad ayuu xirnaa 3 sano iyo 8 bilood anigoo caruura ayaan bartay waxaa ninkii ugu horeeyay aan jeclaado waxaan kala xiriiri jiray wuxuu haystay telefoon markii laga qaatana anigaa u iibin jiray weligiis intuu meesha ku xirnaa xilligiis muusan badin wax waliba aan u awoodo sii jiray maalin kasta lacag iyo telefoon waan u dhiibi jiray inta uu xirnaa waxaan qaabilayay bay tidhi cadaadis badan oo iiga imaanaya dhanka waalidkayga oo ila rabay nin kale oo isoo doontay xitaa dibadda ayaa lagu kaxaynaya ayaa la igu yidhi laakiin waan ku qanci waayay bay tidhi arrintaas isaga uun ayaa ii muuqday ilaa heer aan gaaray bay tidhi in la igu colaadiyo hadalhayntiisa ugu dambeyn wiilkii aan jeclaa wuxuu ka soo baxay bay tidhi xabsiga haddaba maxaa dhacay ayay isi su-aashay qofka aad jeceshahay markaad la kulanto araggiisa waa ku nasteexa bay tidhi nabad iyo naruuro markuu kaa maqan yahana waa kuu hoog iyo higsi bay tidhi laakiin aniga la kulankiisa ayaaba i dhaawacay bay tidhi weligay isma lahayn bay tidhi dhankiisa ayuu waranku kaaga imaanayaa waxaan siiyey bay tidhi kalsooni badan wejigiisa ciil iyo cadho kuma abuurin bay tidhi hadal uu ka cabtana weligayba maan oran waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee aayaha nolosha tv inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka goyn xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya waxaa iiga imaanaya bay tidhi dhankiisa dalabaadyo ay ugu adkayd inaan fuliyo oo khatar ku ahaa mustaqbalkayga oo aan u arkaya bay tidhi inayan munaasib ahayn xilligaas laakiin waxaa dhacday bay tidhi inuu maalin ii sheegay inuu xanuunsanayo waxaana ku qasbanaaday bay tidhi inaan booqdo weliba gurigiisa ayuu igu balamiyey waan u tegay bay tidhi anigoo wax cabsi ah ayaan igu jirin iyo wax shaki ah toona laakiin maalintaasi waxaan hubaa bay tidhi inay ahayd maalintii aan ku seegay mustaqbalkayga wuu ismeeyey bay tidhi kadibna maxaa dhacay waatan iyadoo ka sheekeynaysa walaalaan booqday waxay ii sheegay inuu xanuunsan yahay kadib gurigiisa ayaan ku booqday waxyar markaan sheekaysan biyo caafi ayuu i siiyey markaas ayaan ogaal iigu dambeysay kadib wuxuu rabaa iiga samaystay maalintaas waxay ahayd maalintii mustaqbalkayga walaalo qiyaamay
qiyaamaha qof muslimna qiyaaminayo qiyaamay. caaisha ayaa iyadoo ilmeynaysa talooyin u marisay aayaha nolosha TV hablaha Soomaaliyeed kana codsatay wixii talo iyo tusaalooyina dhankoodana inay la wadaagaan. waxaan boqolkiiba boqol u mahad celinayaa walaalaha aayaha nolosha oo runtii baahi fara badan oo aan qabnay naga haqabtiray. si gaara asxaabta ku xiran aayaha nolosha iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in aysan guryahooda ku booqan ragga sida dhibaatada aniga igu dhacda kale aysan ugu dhicin. walaal haddii aad ragtahay oo nax ka baxa muslimiinta walaashaa oo kale nax walaal. aayaha nolosha TV markasta wuxuu la danqanayaa dhibanayaasha la liita dhaawacyada soo gaaray. barnaamijyadan aynu halku dhiga uga dhignay iska cafi iskana ilow hana ka shalaayin wixii tagay waxaynu uga gol leenahay in aynu ku dhiirigelino kuwa eedaha laga galay halka kuwa kalena aynu rabno inay caashir ka qaataan dhalinyaraduna ay isku dhaafsadaan afkaarahooda caafimaadka qaba. haddaba ku xidhnaaw aayaha nolosha TV.